feedhiyaankii caanka ahaa ee dunida ka yaabiyey mucjisadii feedhka miisaanka culus Mark Tyson kan aad arkaysa sawirkiisa la sawiran waa Donald Trump madaxweynaha Mareykanka oo beriga uu ahaa kuwa soo horkaca markuu ciyaarta soo galayo ama maamulo uu ahaa oo uu u shaqayn jiray Mark Tyson ayaa lagu yaqaanay inuu ahaa nin aan dhinaciisa dhulka la dhigi karin isla markaana waxaa la sheegaa inuu 50 ciyaarood saftay 40 uu badiyay 6 laga badiyay Mark Tyson ayaa baryahan dambe dhaqaalihiisa isku xumaa ayaa waxa uu aqbalay inuu la ciyaaro inay yaro 27 jir isla markaana aan ahaan jirin ciyaaryahan feedhka ciyaara laakiinse ahaa nin YouTuber oo media ama bulshada caanka ninkan oo dhawaanahan dambe u tababartay sida feedhyahanka isla markaana la sheegay dhowr ciyaarood oo aan aad u miisaanku aad u waaweyn ciyaaray oo feedhka ayaa wuxuu Mark Tyson aqbalay inuu ninkan la ciyaaro ciyaartan sababta weyn loo ciyaaray ayaa lagu sheegay in lacag laga helayay inkastoo si cadaalad darro ciyaartan lacagteeda loo kala qaatay oo ninkii magaca weynaana la siiyay Mark Tyson 20 milyan oo qura halka Jake Paul oo YouTuberna loo ogolaaday inuu 40 milyan ciyaartan qaato ayaa waxa ciyaarta inkastoo shuruucda ciyaarta wax laga bedelay oo wareegii 3 marar ku dhamaan jiray sida caadiga lagu soo gaabiyay 2 minute Mike Tyson dartii maadaama uu nin weyn ahaa ayaa ciyaarta waxaa laga dhigay sidoo kale 8 wareeg 8 wareegba Mike Tyson uu la dhamaystay Jake Paul isagoo 8 jir 60 jir weli dhinaciisa dhulka la dhigin ciyaartan ayaa markii si toos loo kala badin waayay knock out wax la yiraahdo laga waayay ama nin aan dhulka loogu tuurin waxa markii dambe go'aan ka gaadhay sida walayaasha oo feedhkii iyo jugii la isku dhiftay tiriyay taasi oo guushu ay ku raacday Jake Paul Mike Tyson ayaa la oran karaa waayaha iyo danta ayaa ku kalifay inuu ka ciyaar xaafadka la ciyaaro maadaama uu ka fadhiistay ciyaarta muddo ka badan 22 sano ka hor Mark Tyson baryahan daba ahaa nin xanuunsanayay ayaa daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan sheerta iyo followda nala ogow lana wadaag asxaabtaada si ay uga mid noqdaan dadka halkan ka daawada muuqaalada xiisaha leh. Thank you.